السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبada aan jecelnahay waxaad ku soo dhawaataa muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada soo socda muuqaalkan shirgareeya mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa ciyaari doonto kulan ka tirsan tartanka UEFA Champions League waxaana la ciyaari doontaa kooxda Dynamo Kiev ka ciyaarta horyaalka Ukraine labada kooxood ayaa caawa ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium kulan ka tirsan tartanka UEFA Champions League wareegga gurubyada ayaa wada ciyaari doona labada kooxood haddii aan fiirino ciyaartooyda dib ugu soo laabatay kooxda kubadda cagta Barcelona Gerard Piqué ayaa caawa dheeli doona kulanka ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda Dynamo Kiev kooxda Barcelona ayaa caawa laga yaabo inay ku soo bilowdo guulaymaanka Ter Stegen muddooyinkii dambe dhaawac ugu maqnaay kooxda Barcelona shaxda macquulka laga yaabo inay ku soo gasho kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka caawa ee la ciyaari doonto kooxda Dynamo Kiev dhanka guusha waxaa ku soo bilaaban doona guulaymaanka Ter Stegen afar daafac waa Desti Piqué Lenglet Jordi Alba qadka dhexe waa Busquets waa De Jong Pjanic weerarka waa Messi Anthony Griezmann Ansu Fati ogeysiiska ciyaarta kulanka Barcelona vs Dynamo Kiev tartanka UEFA Champions League wareegga gurubyada saacadii ciyaarta la daawan doono 5 saac oo habeenimo ayaa la daawan doona kulanka waxaana ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium soo saadaale kulanka caawi wada ciyaari doona labada kooxood Barcelona iyo Dynamo Kiev sheergeli la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona intaan muuqaalkan isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo